haddii aad ka mid tahay dadka nooca wejigooda uu yahay qaleylka ama wax loo yaqaano dry skin-ka, muuqaalkan ayaa kugu sharxaya waxyaabaha sababo inuu maqaarkaada noqdo qaleyl iyo sida ugu fudud ee aad ku daweyn lahayd. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like ii saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada, ama qaybta hoose ee commentiga waxaad ku mishin garaysaa ama ku taag garaysaa qof nooca wejigiisa uu yahay qaleyl. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhiciisa kasoo aragtayba, muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo wax loo yaqaano dry skin oo la micno ah inuu maqaarkaaga noqdo mid qaleyl ah. inta badan maqaarka qaleylka ah waxaa laga dareemaa wejiga, gaar ahaan dhabanada. waxaa jiray muuqaal hore oo aan ka sameeyey wax loo yaqaano oil face oo la micno ah wejiga saliidda leh. marka haddii aad ka mid tahay dadka nooca wejiga saliidda ku leh, waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkaas soo daawatid, balse muuqaalkan wuxuu gaar u yahay dadka nooca wejigooda uu yahay dry skin-ka ama dadka wejiga qalalan leh. jirka qaleylka ah ama wax loo yaqaano dry skin-ka inta badan waxaa lagu gartaa ama lagu ogaan karaa qofka inuu yeesho astaamaha soo socdo. number 1, qofka inuu yeesho dhabanadiisa inay noqdaan mid engeeg ah ama mid qaleyl ah. sidoo kale astaamaha kale lagu arki karo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano tight skin oo la micno ah qofka inuu maqaarkiisa noqdo adeeg. sidoo kale waxaa lagu arki karaa qofka inuu maqaarkiisa qolofta ka dhacdo, gaar ahaan inta badan asaanta waxaa lagu arkaa foolka. jirka qaleylka ah ayaa ah mid haddii la ilaaliyo xaaladiisa caafimaad, gaar ahaan cuntada, biyaha iyo waxyaabaha la mariyo, inuu qofka ka badbaadayo dhibaatooyin badan uu keeno jirka qalalan. dhibaatooyinka ugu badan uu keeno jirka qaleylka ama wax loo yaqaano dry skin-ka waxaa ka mid ah wax loo yaqaano wrinkles. wrinkles waxaa laga wadaa wejiga uu ka soo muuqdo gabowga degdega ah ama laalaabadka iyo duuduubadka uu maqaarka uu sameeyo. jirka qaleylka ah ayaa ah mid haddii la ilaaliyo xaaladiisa caafimaad, gaar ahaan cuntada, biyaha iyo waxyaabaha la mariyo, inuu qofka ka badbaadayo dhibaatooyin uu keeno jirka qalalan ama wax loo yaqaano dry skin. dhibaatooyinka ugu badan ee uu keeno dry skin-ka waxaa ka mid ah qofka inuu wejigiisa kasoo muuqato wax loo yaqaano wrinkles. wrinkles wax kale maahan, waxaa laga wadaa gabowga degdega ah ee kasoo muuqda wejiga. inta badanna waxaa lagu arkaa dumarka. marka haddii aad ka mid tahay dadka nooca wejigooda uu yahay qaleylka ah, waxaa laga yaabaa in wejigaaga uu ka weynaado da'daada. sababtan wax kale ma ahan, waa waxyaabahan aan sheegayna ee wrinkleska loo yaqaano ama laalaabadka uu maqaarka uu sameeyo. waxaana u sabab ah nooca wejigan ee loo yaqaano dry face-ka. waxaan filayaa inaan isla fahanay astaamaha lagu ogaan karo wax loo yaqaano dry skin-ka ama jirka qalalan. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keeno wax loo yaqaano dry skin-ka ama wejiga qalalan. waxyaabaha keeno wax loo yaqaano dry skin-ka aad ayay u badan yihiin. waxaa ugu horeeya number 1 wax loo yaqaano dehydration skin. dehydration skin waa maqaarka oo dareemo aadna u qalala. sidoo kale waxyaabaha keeni karo inuu maqaarkaada qaleyl noqdo waxaa ka mid ah number 2 qubayska oo aad u badan ama showerka badan. inta badan waxaa lagu qiyaas ahaan in qubayska qofka uu noqdo 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo, balse haddii uu ka bato intaas wuxuu kugu keeni karaa dhibaatooyin badan. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah qofka inuu maqaarkiisa ay ka yaraato saliidda, uu noqdo maqaarkaasi mid qaleyl ah. marka waxaa kugula talinayaa haddii waqti showerkaaga uu aad u badan yahay in aad yareysid, sababtoo ah si uu maqaarkaaga u noqonin mid qaleyl ah. sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni kara wejiga qaleylka waxaa ka mid ah number 3 wax loo yaqaano climate change-ga oo la micno ah isbeddelka ku yimaado cimilada, gaar ahaan xilliga qabowga iyo xilliga kuleylka ah. inta badan jirkeena waxaan qaleyl ka dareennaa xilliga qabowga ah, marka xilliyada climate change-ga ama isbeddelka cimiladana way keeni kartaa. sidoo kale waxyaabaha kale ee keeni karo inuu maqaarkaada qaleyl noqdo waxaa ka mid ah number 4 cudurrada qaar iyo dawooyinka qaar. cudurrada inta badan keeno dry skin-ka ama jirka qalalan waa cudurrada ku dhaca maqaarka. marka xaalad caafimaad ahaan ama xaalad caafimaad way la xiriiri kartaa wax loo yaqaano dry skin-ka ama wejiga qalalan. waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalkeena oo ah sidee loo daaweeyaa jirka qalalan. run ahaantii qaabab kala duwan ayaa loo daaweyn karaa jirka qalalan.
sida loo daweeyo waxaa ugu horeeya number 1 wax loo yaqaano moisturizers oo ah kareemyo loogu talagalay in ay jirka ay siiyaan qoyaan ama saliid ku filan. marka haddii uu wajigaaga uu yahay qaleel ama guud ahaanba jirkaaga uu yahay qaleel, waxaa kugula talin lahaa inaad isticmaashid kareemyada loo yaqaano moisturizers. kareemyada loo yaqaano moisturizers waxaa ka mid ah sida shaashada ugu jeedid kareemka loo yaqaano Cerava, kareemka loo yaqaano Cetaphil iyo kareemka loo yaqaano Vani cream. kareemyada loo yaqaano moisturizers inta way ka badan yihiin, balse saddexda hadda ku tusay waa tusaale uun. haddaba kareemyada loo yaqaano moisturizers qaabkii u shaqeeyeen ayaa ah waxaa ku jiro maado loo yaqaano ceramides. maadadan waxay soo saartaa qoyaan badan. maadadan loo yaqaano ceramides waa maado uu jirkeena oo si dabiici ah u soo daayo si uu jirka u helo saliid ama qoyaan ku filan. marka maadadan loo yaqaano ceramides waxay badinaysaa ama ay bedelaysaa maadada dabiiciga ah ee maqaarkeena uu lahaa ee loo yaqaano ceramides. marka haddii maadadan ceramides ay jirkeena ay ku badato, jirkeena wuxuu helayaa dufan ku filan, wuxuuna soo saarayaa saliid ku filan. marka haddii uu jirkeena uu soo saaro maado badan oo ceramides ah, waxay la micno tahay jirkeena wuxuu soo daynayaa saliid aad u badan. waxaan filayaa inaad fahantay qaabkii u shaqeeyaan kareemyada loo yaqaano moisturizers. saan sheegay kareemyadaas moisturizers waxay u shaqeeyaan waxay badinayaan maadada loo yaqaano ceramides. maadada ceramides mar walba ay bataane waxaa badanayo saliidda la soo saarayo. sidoo kale qaabka kale loo daaweey karo wajiga qalalan waxaa ka mid ah number 3 inaad cuntid cuntooyinka ay ku badan tahay borotiinka sida malayga, looska iyo wixii la mid ah. sidoo kale number 4 waa inaad isticmaashid supplements oo vitamins ah. waxa ula jeedaa waa inaad cuntid vitamin C, vitamin E, vitamin D oo badan. saddexdaas vitamin run ahaantii waxay ka qayb qaataan quruxda maqaarka. vitaminada diyaarsan waxaa ka mid ah vitaminadan oo ujeedid ee loo yaqaano omega. omegadan vitamino diyaarsan waayo oo sida supplements oo kale ah. kaniinidan aad ujeedid oo omega ah waa vitamino diyaarsan oo la soo warshadeeyay oo isugu jiro vitamin C, vitamin D iyo vitamin E. marka aad guud ahaan saddexdaas vitamin ayaa target gareysanaysaa. cuntooyinka laga heli karna waa isticmaali kartaa. guud ahaan afartaas qaab oo kala duwan ayaa loo daaweeyaa wajiga qalalan. waxaa ku dadaashaa inaad iska ilaalisid waxyaabaha sababo, sidoo kale aad ku dadaashid ama target ka saartid waxyaabaha lagu daweeyo. waxaan soo gaarnay gabagabada muuqaalka. fadlan ha iloobin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid muuqaalkan qof walbo aad isleedahay uu ka faa'iidi karaa. anigoo kaaga mahadcelinayo daawashadaada muuqaalkan, waxaan kuu rajeynayaa khayr iyo caafimaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.